kusoo dhawaada channelka sooyaalka hawada wararka ugu waaweyn waxa ay kala yihiin amisom oo soo dhaweysay doorashadii galmudug bannaanbax ka dhacay magaalada dhuusamareeb qaylo ka dhalatay hambaliyada Mareykanka ee doorashadii galmudug faahfaahin dheeraad ayaa ku maqli doontaan wararka dibadda waxaa kamid ah Iran oo ku eedeysay Sacuudiga inuu ka hor istaagay ka qaybgalka shirka ururka iskaashiga Islaamka aniga oo maslax nasiib howlgalka midowga Afrika ee amisom ayaa soo dhaweeyay doorashadii madaxweynaha iyo ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ee maalintii shalay ka dhacday degmada dhuusamareeb amisom waxay u hambalyeynaysaa hogaamiyaasha cusub ee loo doortay galmudug waxayna ku boorinaysaa madaxweyne Axmed Cabdi Kaari inuu sii wado wadahadalada dib u heshiisiinta ayaa lagu yiri qoraalka amisom bannaanbaxyo lagu taageerayo madaxda cusub ee dowlad goboleedka galmudug ee shalay lagu doortay magaalada dhuusamareeb ayaa maanta ka bilowday deegaano ka tirsan gobolada galmudug iyo galgaduud deegaanada ay bannaanbaxyada ka bilowdeen ayaa waxaa kamid ah magaalooyinka dhuusamareeb caabudwaq gaalkacyo cadaado waxaana bannaanbaxyada dhigayay dadweynaha magaalooyinkaasi dadka bannaanbaxa dhigayay ayaa waxa ay wateen boorar uu ku sawiran yahay madaxweynaha galmudug ee lagu doortay magaalada dhuusamareeb Axmed Cabdi Kaari iyagoo ku dhawaaqay erayo ay ku taageerayaan doorashadaasi bannaanbaxyada isku midka ah uga socday magaalooyinka dhuusamareeb cadaado gaalkacyo ayaa waxaa jiray mas'uuliyiin ka qaybgalay kuwaas oo iyagana taageersanaa doorashadii lagu qabtay dhuusamareeb doorashada galmudug ayaa waxay ahayd mid uu khilaaf hareeyay marka loo eego sida loo kala qaybsaday iyo dhinacyada iska soo horjeedo siyaasiyiinta mucaaradka ah waxay aad u dhaliileen fariinta ka timid safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ku taalo inkastoo madaxda dawladda aysan soo hadal qaadin hase yeeshee markii la doortay qorqor waxaa markiiba iyadoo dawladda federaalka war ka soo saarin madaxweynaha cusub hambaliyay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya iyo mutu qoraalka ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa waxa uu ku bilaabanayaa sida tan doorashada ka dhacday galmudug waxay uga dhigan tahay dib u heshiisiinta siyaasadeed dawladda Mareykanka waxay cid walba ugu baaqaysaa inay ka qayb qaadato wada hadallada nabadeed kuwaas oo si wada jir ah wax looga qabanayo dhibaatooyinka taagan gobolkaasi waa mas'uuliyad qof walba saaran in laga hortago khatar walba iyo gacan ka hadal waxaan u hambaleynaynaa madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka halka safaaradda Mareykanka ayaa buuq badan ka abuuray baraha bulshada waxaana dadka qaar ay ku dhaliileen safiirka sababta keentay inuu taageero doorashada dhinacyada siyaasadeed ay ku kala murmeen Dr. Xasan Sheekh oo wax ka dhiga mid kamid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Mareykanku aan weligii taageerin wax dan ugu ah Soomaaliya afhayeen ku hadla wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa sheegay in dawladda Sacuudiga ay wafdiga Iran ka hor istaagtay inay ka qaybgalaan shirka ururka iskaashiga Islaamka oo ka socda Sacuudiga kaas oo sanadkan loogu magac daray qorshaha qarniga afhayeenka ayaa sidoo kale waxa uu ku eedeeyay Sacuudiga in wafdigooda waqti dambe siiyeen dalku galka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Abbas ayaa sheegay in Sacuudiga uu diiday wafdiga Iran inay shirka ka socdo magaalada Jidda ka qaybgalaan kaas oo looga hadlayay qorshaha nabadda Trump ee bariga dhexe oo dhawaan shaaca ka qaaday wasaaradda ayaa sheegtay in talaabada Sacuudiga ka soo horjeedo dalalka xubnaha ka ururka iskaashiga Islaamka si ay uga qaybgalaan shirkooda isla markaasna xukuumadda riyada ay si qaldan u adeegsanayso martigelinta shirka si lagu soo xigtay wakaaladda wararka ee Faris waxaana maanta lagu wadaa in dalal ka tirsan ururka iskaashiga Islaamka ay halkaas ku yeeshaan kulan degdeg ah daawadayaal intaas ayaa waxaan nooga wararkeena warkayga intaan ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.